horta aad baan ugu faraxsanahay inuu soo dhaweynayaa in la keeno mooshin ka dhanka ah xeer number 23 qodobkiisa 6aad oo faraya in maayarada xilka lagaga qaadi karo 14 aanu ahaa mooshinka la keenay ee imika fashilmay 11 wana laga badiyay laakiin qoosan mayno waan wadaynaa waxaana taageersanahay golaha wakiilada intii laga rab taagreed uu ka yahay xildhibaan Obama وله هجانك أودي نكودي موشك يا حلو أوباما آد بنطع جسناي وصلنا إنه مر والبنا ونصور دونا إلى أن كقول إنه وأن ما يرد كوري دونه كويتون أفرت هنا كوري ذكرناه الديار بقولنا هاي لكن كويتون بقى كسيف يعني سونو والبنا كوري سقول دمي هذا أنا أمسنا هاي كان قوسنا إنه وأنا ودي دونا بنا أمسنا إلى مرلبا دي مصدحات أنتوا قالوا اسكو راعي ربتي وشيكا golaha baarlamaanka la horgeeyay xildhibaanada wadaan anu fikir ahaan waxaan leeyahay waa kaale aan maranay cusub anigu shakhsi ahaan waxaan leeyahay waxa mooshinka ay keenan xildhibaanadaasi waa kaale aan maranay intay cusub tahay baa la iska qabtay waxaan leeyahay xukuumaddu iyo golaha baarlamaanka inteeda waxa weeye runtii in ay hawsha ay iska diidaan oo la asixin waayo haddii 11 la yiraahdo waxa weeye xilka qaadista ku dhacaysa labadii biloodba waxa la dooranayaa maayir bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan taageersanahay ana soo dhaweynayaa wax ka bedelka laga bedelayo xeerka ismaamulka degmooyinka iyo gobolada kaasoo ahaa in mooshinka maayarka lagu tuurayo uu yahay 14 xildhibaan wax ka bedelka lagu sameeyay maanta uu yahay in laga dhigo haldheeri oo 11 anu aad baan u taageersanahay waxaan leeyahay taas waxay fududeynaysaa lahaanshaha ama isku iloobayo maayarku kursiga taas ay fududeynaysaa سادرته وحلا وان تاجر سنة هاي برلمانك horkeenida la horkeenayo maayarada ama dalabka dalbanayana iyaduna waxay xaq u leeyihiin maayaradu iyo golahana way hor iman karaan baarlamaanka hortagan guddi waxa jira khaas ah oo maamulka dabagalka ah saas darteed guddidaas marka uu yeedho maayarada degmooyinka waxa waxay u leeyihiin u tagaan ay hortagaan taan waan soo dhaweynayaa haddaan ka hadlo xeerka golaha baarlamaanka ee mooshinka ay soo dhigeen in lagu asixiyo 11 in laga dhigo golayaasha deegaanka xeerkaas wuxuu ahaa xeer markii horeba 11 buu ahaan jiray markii dambana baarlamaanku baa ku dhiyo 14 ka dhigay sida saxda ahna xukuumaddu baa markii horena bedeshay sida saxda ahna waxay ku ahayd 11 kii uu ahaado waayo arrimo badan oo guud xilka ninka maayarka noqdaa wax badan buu qaban lahaa haddii 11 laga dhigo sababaha ay 11 ku fiican yihiin waxa weeyaan ninka maayarka uu cabsan lahaa wax badan uu qaban lahaa xeerkaasi waxaan leenahay xeerka imika xukuumadda ka hortimida leeydi marka horena xukuumaddu baa markii bedeladii maayaradu bateen 14 ka dhigtay xeerkaasi xeer fiican buu ahaa waan ku hambalyeynaa golaha baarlamaanka ee soo bandhigay in uu 11 noqdo waan ku hambalyeynaa aniga xildhibaan qooble golaha deegaanka Boorama waxaan u arkaa qodobka baarlamaanku la soo dhigay kulli baarlamaanku waa sharciga dalka sharci dejiyaashii weeyaan dalka qodobkana haray uu jiray waxaan jiray 11 haldheeri buu ahaan jiray markii hore iyaga 14 ka dhigay haddana iyagunba mooshinka keenay oo yiri 11 kii haldheerida ku celino baarlamaankana mas'uuliyad baa ka saaran waxaan ku dhagaay waddanka inay naxariistaan laakiin ana haddii ra'yi layga weydiiyo waxaan oran lahaa horta shakhsiyan anigu waxaan taageersan lahaa in 14 lagu daayo sababtoo ah 14 lagu diinayo in cid kastayba ay dhalinyar badan baa soo baxday balay waddanka oo maxaan ku dhahay golayaasha deegaanka soo baxay xagga mas'uuliyadda marka la eego daniga 14 isla ayaa maayarka laga qaado 14 lagu daayo oran lahaa laakiin 11 haddii laga dhigo degmo kasta ay wareeri degmo kaliya ma waddanka oo dhan baa wada
inuu fawdo galay suurtagal tahay. الرحمن الرحيم وريه عيب تري أدباد ما صدق صاحب هدي هدي وجه سؤال إن بارلمان كبرية وحكومة مشغول صنع إنه كوبي طبعا الدبان يريد كران موشيك ما يراد الجودي إما كافرة مويا لكن أنا أقول حلا يابنا بل عدة نودرتي بارلمان كان عدة بارلمان كودرتي إن كوبي طبعا الدبان لقى دقوا أنا وعايشنا كمان مرة لكن عدة نودرتي أنا ما قرنا إن عدة لا لوشتي كانت درتنا ما قرنا إنه يجوا سيستم ما نركنا دي أنا بارلمان كرواد لقى دكتي رواد نقدر إن ما أنا أقول أفريت ما كاسن كودي يصير أنا أن حلبان هذا واحد اللي يدافع فرت كعضة أتقولها ديجان كاي ما يرضى حلك كقاضيان حلبان هذا وي أبود كرويان أبود نووي لويان كل كائن لو فضودية سويس بدل له أي مدن ما يفضلين ما تري وتقال عادي هذا عويان واحد ربنا نقول إيش ديجان كلوبيان هذا كوبي تروح الدوام لقى ديجو صنّت كيف الله ما يربى البتري بروبلم وين تاج ابتدي له لكن يجوا واحد موديان إني ما يرضى عبصنيان وارين مكبا عبصني كوجران ما يرضى ما يرعوان دي أجرب ما لسه نكسر دقيقة كقرعناي وحويان كوبي تون كوام مشكلة السوبر برتوية دقمو هذا البورة ما نقول إنسان مالك استلع ما ينهل